Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel kastaa joogtaan soo dhawaada insha allah maanta waxaan inoo wadaa macmacaan aad iyo aad u fudud oo laga sameeyey 3 shay bas wax kale uma baahnid 3 shay waxaa laga yaabaa gurigaada inay kuu oolaan hope waxaan rajeynayaa inuu idin cajabin doono insha allah anigaaba og so waa macmacaan oo aad iyo aad u fudud intaasi ka hore intaan bilaabanin waxaan ku leeyahay hadday tahay markii kugu horeysay aad channelkayga soo booqato soo dhawow please subscribe-na ii saar insha allah ha beelkana taabso markaan video soo geliyo si fuu kugu soo dhaco haddaa hore iila joogi jirtayna aad iyo aad u mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtiga ay gelisid waxaan rajeynayaa anigan inaa wax iga faa'iidid wax wanaagsan insha allah 3 shay waxay ka kooban yihiin waa biscuitka xagga ku arkaysaan iyo biscoff spread waa asagoo mataqaanayo oo sidii nutellada oo kale ah oo rootiga la marsado insha allah iyo waxaa kaleeto aan u baahannahay soft cheese waa cheesekan insha allah iyo waxaan u baahannahay iyo chocolate cad insha allah بإذن الله هذا هو باللابانينا so حاجة نحن كويسة بسكوت كين سو شيدي أما وصوته مكرتا بإذن الله so حاجة نقول شو بنا يا هاف نكرر so هاف بس يهدوان نستعمال دونا حاجة دنبه هذا waxaan ku darayaa 2 qaado oo kana insha Allah 2 qaado aad u buuxdo kana ku dari doona iyo qaado kale waxaan kaloo ku darayaa 2 qaado aad u buuxda ama half oo cheese insha Allah soft cheese intaasaan isku mix gareynaya u baahan tahay gloves insha Allah ama gacmahaaga waa la geli kartaa leeyahay aad u dhagdhagaya creamka iyo biscuitka marka la isku qasaayo insha Allah gloves hadaa haysatid gasho ما شاء الله هذا هو سودا مي وسودا حقلية سيدا أركيسان هذا استراحديد وكاءت كاذي وحاقو درتا كريم كقدر أما هذا استراحديد وكاء جلعسان يهي ومكا قعنتا أسا كده هيد وكوهو دقدقايو بسكدا كدري كرتا مو بسكدا كدريسان إن شاء الله waxaan rabaa marka gacantaada ku dhahdid inuu gacantaada ku dhagdhagin oo waxba soo raacin gacantaada biidnillah intaas kadib sidaasan kasoo dhigaya couscous isla eg ayaa ka dhigaysaa wax isla wada egan kasoo dhigaya insha Allah soo saxankaasan soo sarsaaranaya ka bacdi markaan dhameeyo aan isku soo noqonayna biidnillah hadda waa kusoo dhameeyay sida arkaysaan waxaan sameynayaa dhinacan iskaga dhigaynaa ama haddaad doontid fridge-ka iska gelin kartaa intaa mataqaanaa chocolate-kii waxaad diyaarsanaysid saasaan sameynaynaa insha Allah haddaan fridge-kan iska geliyay kadib xaggan chocolate-kii aan ku dhalaaliyay chocolate-ka biyo kulul intaa dabka saartid ayaa bahalka weelka birta ah ku ridaysaa insha Allah kadib hadda waa soo dhalaaliyay chocolate-ka wayna soo yara qabowday insha Allah chocolate-ka aad u kulul ha ku dhaxridin lian hada ku ridid wuu kala jajabayaa soo xabadaan ugu ridaynaa si tartiib ah ugu ridaysaa insha Allah ma rabno inuu kala jajabo yara qaadada ugu qaadaysaa waxyaalaha dheeraadka chocolate-ka dheeraadka ayaa ka reebaysaa insha Allah intaasi kadibna waxaan kusoo diyaarsaday meeshan bacdan baking sheets-kana insha Allah aan sarsaaranayna kadib intaas kadib waxaan sameynaynaa biidnillah haddaa waqti haysatid dhinac ayaa u dhigi kartaa haddii kaletana waqti haysanin
fridge-ka gelin kartaa insha allah. Fridge-ka intaa gelisid aa ku daynaysaa ilaa iyo saacad ama sida adiga kugu qalalo, ama freezer-ka gelin kartaa hadaa waqti haysanin. Freezer-ka dhaqso mataqaanaa qalajinayo chocolate-ka insha allah. Sidaasi waa yeeli kartaa. Ani xilli galabaan sameynayay so waxaan sameeyay freezer-kan geliyay. Freezer-ka markaan geliyayna dhaqso waxay helay chocolate kuu fariistay. Sidaasina waa yeeli kartaa hadaa waqti haysanin. Haddii kaleetana xagga sare fridge-ka iska gelin kartaa isaga iska fariisanaya chocolate-ka. Kan waxaan ku daray sida arkaysaan waa biscoff-kii spread-kii ayaan soo dhalaaliyay oon qayb ka dhigay noocaasan biscoff-ka spread-kan galgaliyay insha allah. Ama chocolate waa u isticmaali kartaa hadaa biscoff spread haysanin. Kusoo dhameynaya waxaan ku leeyahay mar labaad hadaa igu cusub tahay soo dhawow insha allah. Please subscribe-ka ii saar. Waxaa jira dad badan oo i daawada bilaa subscribe i daawadaan leena xaggasan ka arkaa insha allah. Wuxuu ku dhibi maayo walaasha iska subscribe-ka igu saar ilaahay idinkiis. Intaas kadib hadda waxaan gelinayaa freezer-ka xagga hoose oo qabow barafka biidnillah. Xoogaan ku daynayaa kabacdi markaan soo saarana waxaan ku sameynayaa chocolate-kii intii soo hartay xagga sare kaga sharaxi doonaa insha allah. sida arkaysaan wakaas hadda chocolate-kii ayaan xagga sare kaga daadinayaa. And then markaas kadib waxaan sameyn doonaa biscuit-kii ayaan kor kaga shushubi sifa sharaxaad camal biidnillah. Biscuit-kan aad iyo macmacaankan u macaanaa dadaa gift ahaan ugu geyn kartaa. Wakaas ugu dambeyn sidaas uu nooga soo baxay insha allah. Hope waxaan rajeynayaa inuu idin cajabiyo oo isku dayi doontaan biidnillah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay please subscribe-ka noo saar. aad ayaan u mahadsan tahay daawashadaada. aad ayaan kaaga mahad celinayaa biidnillah. intaan videogiisa xiga ku kulmi doonaa insha allah. waxaan idinkaga tagayaa amaanada ilaahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.